sida ku muuqata daawade tani waa argagax muujinaysa garaacitaanka loo geysanayo Cabdi Ciise oo ay garaacayaan booliska Soomaaliland. Cabdi Ciise oo ay bulshada baraha bulshada ay u yaqaanaan ninka Safiya Tusmo ayaa muddooyinkan dambe haysta baraha bulshada, iyadoona sidoo kale haatan ay ku soo cadaatay inuu duubay muuqaalada laga faafiyay Safiya Tusmo. booliska Soomaaliland ayaana wada sidii maxkamad ay ku soo taagi lahaayeen Cabdi Ciise oo loo yaqaano ninka Safiya Tusmo iyo waliba dadka haatan garaacaya. muuqaalku waa muuqaal argagax leh, waxaana soo qabtay kaamiradaha ku dhagan magaalada Hargeysa oo ah caasimadda ismaamulka Soomaaliland. waxaana sidoo kale muuqaalka haatan kaga muuqanaya daawade garaacitaanka iyo sidoo kale bahdilka loo geysanayo Cabdi Ciise. garaacitaanka Cabdi Ciise ayaa waxaa ku howlan daawada sida ku muuqato oo u geysanaya shacab weynaha ku sugan magaalada Hargeysa oo ah caasimadda Soomaaliland, iyadoona sidoo kale haatan la filayo in la soo taago maxkamad. kadib soo ifbixitaankii muuqaalkii Safiya Tusmo ayaa waxa ay ku soo aadaysaa garaacitaanka Cabdi Ciise sida ay uga xun yihiin bulshada Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada Soomaaliland qaasatan magaalada Hargeysa. Soomaalida caadi ma ah. luuqa waxaa la isoo dhigoyaa clip yar oo waraysigii Tusmo laga soo jaray. marka waxay isoo qorayaan farxiyo 21 naag 21 naagood oo caana allahayaa soo socdaan ay dhahoosay maama Tusme. farxiyo goorma la soo deynaa hees miya hees new song miya oo video cusub miya oo soo baxooyo oo shimeel la soo deynaa Soomaali waa fadeexa u diyaar waayba dad waxa waayba. you guys life kala dhan iyo qurux iyo sheeg asturnaan iyo sharaf ma raadisiin, fadeexa raadisiin ya. subhanallah waxa wax laga yaaba ah mujtamac dhan dad dhan bulsho dhan oo raadinayso inay qof wax lid ku ah arkaan, wax xun oo qof kale xumaantiis inay arkaan calashan jecel. say u badan yihiin ka hadlooyada Soomaaliya, say u badan yihiin asaasaday anaga inta nadiifka oo yar dadka yar anaga waa dadka jecel inay ma aragtay wax xun arkin ama aan interest ku ahayn dad yar waaye. marka majority aan ka hadloonaa lambarka badan aan sheegoonaa calashan why interesting ugu yihiin inay xumaan arkaan. raadi inaa wanaag aragto, raadi inaa qurux aragto, raadi inaa sharaf iyo karaamo qof leeyahay aragto. hadda ka hor waxaan maqlaayay dhowr sano ka hor 10 sano ka hor ma eed waxaa la igu yiri 4 qof oo Soomaaliya meel isugu imaata hal qof oo waalan war amay run tahay. hal mid aan marka idin sheegaa kulley wax kasta mar baa laga ilbaxaa. wax kasta mar baa laga ilbaxaa. waxaan rajaynayaa inay Soomaalidu ka ilbaxdo inay interest ku noqdaan dhaqan saan hadda interest ugu yihiin xumaan leh in la raadiyo ama daraamo la kariyad gareeyo. ina interest ku noqotaan waa wax lala yaabo waay. calsha xumaan ina interest ku noqotid waa wax lala yaabo ay ku qabato bun camal ku qabato. laakiin waxaan idin sheegaa waxaan waa iska dhamaahayaan si kastoo wax u qaldan yihiin, si kastoo wax u jiraan waa laga gudbaa waan iska dhamaahayaan. sababta mar
kasto sababta ceeb qof leeyahay loo keenayo ama qof caana dhibaatadiisa aa u arkaysaana ma idin sheegaa sababta mar kasta dadka caanka ah xumaantooda iyo ceebtooda ay Soomaalidu u raadiso ama mar kastaba qof fanaana ama qof bulshada magac ku leh in ma aragta la yiraahdo waxba laga hayaa waxba saanu yahay kanuu yahay in la yiraahdo maxaa koos garay ma taqaanin idinku way dhacdaa laakiin sababta isma weydiisaan sababta waxa waaye ina interest ku tiina la ogyahay waxa la ogyahay ina interest ku tihiin ina aragtaan qof famous oo Soomaalida laga dhex yaqaano ina ceebtiisa aragtaan cala Shanfiria awalan waxba leeyahay dheefin xabada leeyahay kuma dheefinaday ayadoon xabadna leeyahay ku dheefin aad waxaad extra keensateen oo ku darsateen inaad xumaanta dadka aad raadisaan ceebta dadka inaad aragtaan aad jeclaateen ayadoon munaafacaad kala dhan leeyahay ku qabin marka that's why dadka xumaanta raadiyo ama dadka daba gala waxay wax u raadiyayaan u adeegayaan sababka ugu maqan yihiin idinka waay marka maskaxdayda yar ka shaqeysiyay waxa ii soo baxday this people oo aan ka dhalanay they feel boring ku dareemoyaan arrintii tusmaay ma aragtay way ka caajiseen they feel boring u yihiin caajis waxay hadda marka arkeen klibkan yar oo la carcaraayo 12 dumara 12 naagood oo caana allaha camal maxaa marka ka helay hadayba jirta xataa oo lahaayo naag Soomaali oo caana oo la afuufawaayo ama nin Soomaali oo caana wax afuufawaayo waxa interest ugu noqonaysiin ama qof dharra ama qof dayacan oo caan oo kala daadsan wuxuu ku soo kordhiyay ma sheegi kartiin ani ma sheegi kartiin hadda aqli leedihiin in qof Soomaali oo caan oo walaalkiina ceebtiisa la raadiyo interestigiina keenay fucking rabitaankiina keenay haddaba wixii war ah oo ku soo kordho nagala soo page-keenan ku mahadsanid daawada muuqaalka like saar oo la wadaag saaxiibadaada